bismillaahi raxmaani raxiim daawaday halkan waa barta YouTube ee galka wararka qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga hadduu rabbi ka raali noqdana waxa qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya ka imaanayo waa sidee subaxnimadan xaaladda dadka reer Itoobiya ay ku soo tooseen Abiy Ahmed oo ku hanjabay inuu dib ugu laabanayo Makalla ciidanka federaalka Itoobiya oo laga qabsaday gobollo cusub oo dhowr ah TPLF maanta waxa ay sameynaysaa dhoolatus ciidan oo aad u ballaaran ciidanka federaalka Itoobiya oo gobollada qaar lagu go'doomiyay Abiy Ahmed waxa uu sheegayaa in shacabka Tigreega dagaalka ay qayb ka soo noqdeen isla markaana sida hadalka uu dhigay ay ku dagaalamayaan hub ay qayb ka tahay seefafka daawadayaal intaasi waxay noqonayaan qaar ka mid ah qodobadii ugu doorkanoona warkayaga halkan waa barta YouTube ee galka wararka haddii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato daawada si mar waliba aad u hesho wararka warbixinada iyo barnaamijyaadka gaarka ah oo markan halkan aan kugu soo gudbino asxaabtaada waad u sii share gareyn kartaa si sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana ay ugu xirnaadaan barta YouTube ee galka wararka ugu horeyn waxaynu ku bilaabi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee markaasi ka imaanaya Itoobiya markana waxaynu eegi doonaa halka ay marayaan markaas wararkii ugu dambeeyay iyadoo saaka la soo warinayo gobolada qaar in markaas uu dagaal xoogan ka soconayo halka gobolada kale ee markaasi dagaalka horay uusan uga jirin dagaalka uu ku sii fidayo ciidanka Tigray waxa ay sameeyeen dhoolatus ciidan iyo sidaas oo kale mid hub oo markaasi aad u ballaaran waxa jira hanjabaad labada dhinac oo markaasi hawada ay isku soo marinayaan saraakiil hogaaminaysay ciidanka TPLF waxa ay sheegeen in markaas ay qabsan doonaan gobollo dhowr ah haatan waxa ay si buuxda gacanta ugu hayaan Makalla waxayna sidaas oo kale tilmaameen guud ahaan gobolka inay markaasi tahay mid waajib ah in gacanta ay ku soo dhigaan Abiy Ahmed oo horay markaasi ugu dhawaaqay xabad joojin waxa uu dhankiisa sheegay in taasi maslaxad uu ku raadinayo haatanna ay noqonaysa in markaas mar kale la dagaal geliyo ciidanka federaalka gobolada qaar wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in markaas duqeyn ay jirto dadkii rayidka ahaa ee halkaasi markaas ku dhaqanaa ay isaga barakaceen Itoobiya dhankeeda hanjabaad ayay jeedisay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ciidankeeda ay toddobaadyo gudahood dib ugu markaas gali doonaan magaalada la yiraahdo Makalla oo caasimad u ah gobolka Tigray haddii loo baahdana 2 maalmood kadib markii ay qabsadeen TPLF ay sheegeen in 2 maalin oo kaliya ayaguna ay kaga saari doonaan waxa ay sheegeen tani inay noqonaysa markaas mid si iskood ah ay isaga soo baxeen isla markaana ciidanka TPLF ka soo bixitaanka ciidanka federaalka kadib ay halkaas sida ku soo galeen afhayeen u hadlayay dowladda markaas Ridwan Hussein ayaa markaas sidoo kale sheegay in xabad joojinta ay dowladdu halkaas kaga dhawaaqday isniintii la soo dhaafay sabab la xiriira dhanka bini'aadanimada waxa uu sidaas oo kale beeniyay hadallada ka soo baxay mucaaradka ay sheegayo in xabad joojinta ay timid baqdin kadib isla markaana ciidanka markaas TPLF oo soo xoogsaday kadib markii ay arkeen federaalku in sidaas ay maciin bideen in markaas xabad joojin ay ku dhawaaqaan waa hadalkii ugu horeeyay oo markaas rasmi ah oo markaas uu jeediyay mas'uul ka tirsan dowladda federaalka tan iyo markii Makalla ay qabsadeen xoogaga Tigreeda arrintan ayaa waxa ay noqotay kadib markii federaalka mid ka caraysiisay iyada oo ballanqaadyo dhowr ah TPLF ay sameysay taasoo ku aadan in markaas ay la wareegi doonto gobollo dhowr ah Itoobiya waxay sidaas oo kale markaas ku badan isla markaana ciidanka federaalka waxay dhowr markaasi u laba jibaarmaan isla markaana ay ka badan yihiin ciidanka mucaaradka ee TPLF sidaas oo kale waxa ay sheegtay in markaas marnaba aysan saameyn ku yeelin doonin isla markaana aysan baqan doonin waa sida hadalka ay u dhigeen markaas afhayeen jabhadaasi u hadlayay afhayeenka jabhada TPLF ee markaasi lagu magacaabo Ketewel Red
waxa uu talaadadii u sheegay Reuters in xabad joojinta ay dowladda ku dhawaaqday ay ahayd kaftan, taasina ay u muuqatay mid cabsi ah. geesta kalena Ridwan ayaa xabad joojinta ku qeexay go'aan siyaasadeed oo markaasi loo qaatay sababo markaas bini'aadanimada la xiriira. haddii loo baahdo si fudud ayaan ku geli karnaa Makalla wax ka yar 3 toddobaad gudahood, ayuu yiri. hadalka Ridwan ayaa imaanaya iyadoo hogaamiyaasha mucaaradka Tigrayda ay wacad ku maray inay cadawga ka saari doonaan gobolka, taas oo muujinaysa in dagaalka uu sii socon doono inkasta oo dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xabad joojin. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladdii ka jirtay Tigray ka hor dagaalka ayaa lagu ammaanay soo markaas gelitaanka TDF, waxayna sheegeen inay si buuxda gacanta haatan ugu hayaan Makalla. dowladda Tigray waxay ugu baaqaysaa dadkeena iyo sidaas oo kale ciidanka Tigray inay markaas joojin halkankooda ilaa iyo cadawga si buuxda looga markaas saarayo Tigray, ayuu yiri afhayeenka. tani waxay u muuqanaysaa in markaas ciidanka Tigrayga ay sameynayaan hub aruursigii ugu dambeeyay, iyagoona geesta kale magaalada Makalla oo haatan gacanta ugu wada jirta ee markaasi ku soo dhigeen isla markaana ku soo bandhigeen dhoolatus ciidan iyo sidaas oo kale mid markaas hub. waxayna soo bandhigeen saanad ciidan oo aad u fara badan. afhayeen u hadlayay waxa uu sheegay tani inay noqonayso mid guud ahaan gobolka lagu xoreynayay. waxa uu sidaas oo kale goob fagaara oo ka hadlayay waxa uu dadka halkaasi ku dhaqan kula hadlay in aan loo kala harin dagaalka ilaa iyo gobolka laga xureynayo. waa sida hadalka uu markaasi u dhigay. waxa uuna tilmaamay tani inay noqonayso mid markaasi loo baahan yahay in si wada jir ah loogu soo jeesto dagaalka. markana ciidanka Eritrea ayaa isaga baxay deegaano ay markaasi ka joogeen Ethiopia. ciidankani waxay qayb ka ahaayeen dagaalkii markaas lagu saarayay jabhadda TPLF. ciidankan ayaana la arkayay iyaga oo wata dabaabaad aad u fara badan oo banaynaya fariisimo dhowr ah oo markaasi ay kaga sugnaayeen gobolka. jabhadda ka dagaalanta waqooyiga Ethiopia ee TPLF ayaa markaasi weli sii wada markaas dhul ballaarsi kadib markii ay dib ula wareegeen caasimadda gobolka ee Makalla oo ay kala wareegeen ciidanka dowladda. waxayna tibaaxeen in gobollo dhowr ah oo markaasi Makalla kaliya aan ahayn in markaasi ay la wareegi doonaan. waxayna sheegeen tani inay noqonayso waajibaad saaran. mucaaradka ayaa hadda galay magaalo lagu magacaabo Shire oo markaas qiyaastii 140 kiiloomitir markaas sidaas oo kale u jirta waqooyiga galbeed, sida markaas ay sheegeen saraakiisha qaramada midoobe. ciidamadii Eritrea ee taageersanaa ciidanka Ethiopia ayaa goor sii horeysay isaga baxay magaalada. dowladda Ethiopia ayaa gobolka Tigray markaasi uga dhawaaqday xabad joojin 3 bilood kadib markii uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu halkaasi ciidamo u diray si uu markaas hoggaanka gobolkaas meesha uga saaro. waxayna sheegeen in xabad joojintani isla markaana ay ku micneeyeen kaliya inay noqonayso mid kaftan ah. geesta kale warar madax bannaan oo soo baxaya waxa ay sheegayaan in ciidankii Eritrea ay markaasi isaga baxeen sababo la xiriira kadib markii culeysaad iyo sidaas oo kale ay soo food saareen, taas oo la xiriirtay balamo dhowr ah iyo sidaas oo kale arin markaas ka dhaxaysay Abiy Ahmed aysan suurtagali weyn. ciidankan Eritrea waxay ku sugnaayeen gobollo dhowr ah oo markaasi muhiim u ahayd federaalka Ethiopia, isla markaana isaga soo baxeen. tani dadka falanqeeya siyaasadda Ethiopia waxay ku macneeyeen in mar kale dhabarjab xoogan ay ku noqonayso federaalka, isla markaana suurtagal ay noqonayso in ciidanka TPLF ay markaasi dib ula wareegaan gobollada markaas ay isaga baxeen ciidanka markaas Eritrea. gobollo dhowr ah oo ay qayb ka tahay Shire iyo sidaas oo kale gobollo ku dhadhow Makalla ay ciidanka markaas TPLF haatan gacanta ku hayaan, isla markaana waxay sheegeen in halkaas aysan ku sii ekaan doonin, ay waajib ku tahay guud ahaan in gobolka ay la wareegaan.
daawadayaal guud ahaan warkii oo aad kala socoteen galka wararka waa naga intaa waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga waxaynu diiradda saari doonaa oo aan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ka imaanaya hadba xaaladda halka ay marayso iyo arinku sida uu yahay ayaan idiin soo gudbin doonaa annagoo mar waliba u jaleeci doono wararkii ugu dambeeyay ee halkaasi ka imaanayo waad ku mahadsan tahay la socodkii la jaanqaadka warkayaga waa barta YouTube ee galka wararka booqashadaadii ugu horeysay haddii ay tahay subscribe noo saar asxaabtaada u sii share garay qaybta hoose ee oraahda commentiga kaaga aadan wararka aan soo gudbinayno noogu reeb waad ku mahadsan tahay mar kale iyo mar kale la socodkii la jaanqaadka warkayaga